adoo ku doodaya ama ka hadlaya gobolkii Harawaan arkay waan ku faraxsanahay inay Harawo gobol hesho idinku maadaama tiin xildhibaanadii deegaanka iyo heer federaalda bariishkii isku xiriirayeen bulshada iyo dawladda marka kulay xogtii ugu dambeysay ee maamul xildhibaan degmooyinkii iyo gobolkii Araabi iyo degmadii Madar ayaan kulay weydiin la barnaamij update ugu dambeeyay la siisaan جمعة موارد مرلوات ما أنت هو مالين جمعة كلي ومالين خير كذا لا ومالين دين عكرنا أي نصاب وغدان حل بان ذي قوب دور شلا عربي وهو جامين يو حل بان كمال أي حل بان ذي نكلم هل دجان كلي كل كان ماتا كل كيسي سيد أكتونيدين برشة إيوه اللي بانلدو أرمى بدن بيكول هذين أرمى هي بدنا محاكا قبصو ما يكلي ونسويدين ناماتا محاني مكو بهنا اللي بانلدو ما دام دورشنا أي كل يسولو ذهي وحنو بهنا هي إنه كشعبهان إيه كمعمولهان با إنه اللي بانلدا وحقبت كلنا قيمينه باهين إنه بدينه وأنا أقوم هذا علينا إن بقشة مرلوات أي معناتها نوصل بغداد كل وقت واسكير وجد حل بان كمال مقصور يشين دونا هذاك كدب إذا كان لو ريجي دونا نور با وحكور رمي دونا حالة تشتري وحلو باهي هاي كل يسوي نوفا فاين دونا حل بانكو وما سنتين حل بانك كل شيء إن شاء الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم تقول شعلي. سيتي. hogaaminta dhaqanka ulamaadiinka haweenka dhalinyarada shaqaalaha dawladda dhamaantiinba safaan noo soo dhaweyseen shirkana ajibteen aadid baan nima hadnaqad mahadsantiin waxaan soo kale u mahadnaqayaa maayarkeena barakeysan mudane Mahmoud Waabari iyo kabinetkiisa oo shirkan qaban qaabadeeda iyo in loo baahnaaba gacan way ku lahaa iyagana way mahadsan yihiin say hortayba ka dhawaajiyeen waa hawleena caadiga baan u soconaa matalaad ahayd sida herosaadka noo qoran baarlamaanka sanadkii 2 jeer shacabka la doortay baan u tagnaa wixii baahiban ayaan ka soo ururnaa tii maamul magaalada ku saysan maamul magaaladan kala xisaabtanaa umaarku ugu horeeyo kii heer deegaan baan kala xisaabtanaa kii heer federaalna wasaaradda heer federaal baan kala xisaabtanaa hawsheedu waa isla xisaabtanka weeye microphone-kaas codkaan ku soo fogeeyaa Soomaa codkii noo baan intaan qaadano ugu sii fogeeynaa marka idinka baan afkeeninahay marka inaan imikana afniin noqono bal 6 bilood ee ugu dambeeyay kala maqneen maxaa usub xaaladaha hadda taagan haddaad fikir ka qabtaan haddaad su'aal ka qabtaan wixii baahaya inaan naga urno ma usocnaa marka waqtiga badan idinka qaadan doona kadibna ما أركي حلبانة مركي وهي فكرة كديبتان أنا نسوق ونادي مادامو مالين جمعية هاي إن وقت كمنا تكدوا إن الدول يدادو وارونا وهي بهات شو بسين أنا قد حكومات مركز تان دهنا هلو قبته وحنا ولا فليه وهي مكان إن شاء الله ولو جوجي دونا وهو ويل كان نسود وين أي مسؤول كاس في عنكو هالله وهي وعنو قبسوا حكم ذو بيري إن لدغ حد يجوا hospital كمجال توقع شاله لبلابي دغ حد يصير بلابي سلا صعدة وذوقتهين كورمر كان هرمر كان يمنعي مرة سفر كأمريكا كسول لابته بهاي أن نقول أمريكا كحشيش وحنا قال قلبي دولة نافمات للسينيو on maga hospitalka togo chale lagu soo qaad doono iyo goobo kale oo wadanka deegaanka baa jiraan waxaan nigu hambaleynayaa intaan kormeerka ku jiro alaabtu waa dhisaaway soo gashay hadda marka laabto in la soo process gareeyo la ninkeena oo baxday taana waa alxamdulillah hambalaan idahaya marka aad toos waxaan u gudbaynaa idii wad qaadanaysa maraga ka bilaabay maanta dumarkan ka bilaabnaa
marka gacanta taago hal mar 5 qof yaan siinayaa wareeg labaad u soo laabanaa suldaanka haye suldaan baa koow ah walaashay baa laba ahaanaysa yaa saddexaanaya ما بيسك أنت أوكي صدق هلقى صدق أفر يا شنين يهودي كوفيان شن تاسم كدينا صلى كودي اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركور إلهي ومهده اسمك كيني يدي تهي مالين جمعة halkan mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa ama salaamayaa xildhibaanada uu hogaaminayo xildhibaan Kamaal Xaashi iyo xildhibaanada kale la socda dadweynaha reer Togwa Jaale maamulka kabineetka dhamaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib marka hore waa nabad xildhibaanadayadii waxaad ku mahadsantihiin in dadkeedii soo doortay aad ku soo noqnoqotaan macnaa xildhibaanadiidii ka horreyn jiray may dhicin in ay sanadkiiba 2 jeer ku soo noqdaan daayo waqti xiloodkoodii inayna harmar iman ayaa dhici jirtay markaa taa waan idinka mahadcelinayaa inaad dadkeedii soo doortay ama waqtiga ama yeelan sidina aad ku soo noqotaan mar labaad kullay xildhibaan Kamaal waa heer federaal doodihiisa iyo hawlaha aad baan la soconaa inuu ilaa Mareykan tagay isagoo qalab caafimaad ay kala saxanayaan waan arkayay imikana waa kay doogu bishaareynaya inuu adsabo soo galay aad baad ugu mahadsan tahay xildhibaan ta kale kullay magaaladan Wajaale baahiyaha ilaahu baa saari karo dee baahiyo way jiraan imika tusaale ahaan biyogelin baa la sameeyey waxaa ku jira laydkii waa la saxeexay laakiin weli haddaana muu soo gaadhin biyo la-aan adag baa ka jirta magaalada maadaama aad heer federaal ku noqonayso inaad xafiiskii biyaha dabada ka soo riixdo sidii laydgelintii loogu samayn lahaa ceelasha waa qodobka koowaad inaad hoosta ka ariiqataan doonayno ood weliba noqodkaaga xafiiska ay khusayso ee biyaha sidii ay noogu soo dadejin lahayn maadaama xilli jiilaal la gelayo biyo la-aan adagna imika ku tahay ay ka jirto magaalada biyihii iyo ceelashiina ay xidhiidhsan yihiin laakiin jiinna cusub baa dul saaran ma awoodno lacagta ku baxaysa maalintii waa 60,000 markaa miisaaniyadii taalleegno ma hayno laydkaa in lanoo soo dedejiyo waa qodobka koobaad kullay laydka magaaladuna waa heer federaal laakiin waxaan leenahay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay station fidid buu u baahan yahay in magaalada la gaarsiiyo waxaa laga yaabaa halkaa kaniisadda markaad soo yar dhaaftaan bal il gaara ku eega waxaa ka guri halkaas waxaa ku yaalla 70 saacadood markii cid u tallaashahay waayeen bay nin walba intuu halkaa ka jiitay buu qoryo yaryar oo daciifa ayaa laga sii jiiday waxay sababtaa in dab ka dhasho magaalada guryo badani ku gutaan markaa in leyrka la fidiyo lafteedana xildhibaan Kamaal inuu hoosta ka ariiqdo mashaariicaha heer federaal qabanayo deegaanka la keenayo waxaa jira magaalada Wajaale magaalo qabale ay ahayd oo maamul noqotay in la koriyo maadaama ay wajigii magaalo aan tahay Itoobiya ayaa loo baahan yahay in laamiye loo helo iyada lafteeduna waa laga maarmaan marka mashaariicaha heer federaal qabanayaan in bal ilaahay idamkii la nagu xisaabtamo oo yaro laamiye xagga loo soo leexiyo lafteeda inaad xildhibaan insha Allah ka hawlgasho waxa kale oo jira deegaanadan ku xeeran Wajaale ama degmada Awbara ila qabri bayax la harta sheekha wax isku xiro hojidada male in xukuumadda heer deegaan baa furi karta aad kula xisaabtantaan in isku xir la sameeyo deegaankii waayo xilliga roobdo
qofka umusha ama qofka dhibi hayso xitaa iska daa ambalastu ma geli karto xilli roobaadka taana inaad heer deegaan iyada lafteeda xildhibaanadiinu aad kula xisaabtantaan sidii jidad isku xidhaa loo heli lahaa ama awbari iyo wajaala ha noqoto ama qabri bayax iyo wajaala ha noqoto ama wajaal iyo harsheekh ha noqoto si qabaliyadiina dhexna ay uga faa'iidaystaan taasina waa taa ta kale xildhibaanka haddaan la yar kaftamo marar badanood hadlaysay adoo ku doodaya ama ka hadlaya gobolkii hare waan arkayay waan ku faraxsanahay inay harewa gobol hesho laakiin degmadan Madar maxaad uga hadli lahayd xildhibaan bal taa halkaa lafteedana degmada Madar lafteeda inaad qorshaha ku darsato waanu ku faraxsanahay waanu jecelahay inay harewa gobol hesho laakiin deegaan ballaaran oo aad inaad soo martayna aan aaminsanahay oo halkaa ka soo noqda meesha la yidhaha Kooljaara halkaana qabri bayax ka soo noqda halkaana hartishaak ka soo noqdo eriyadaas oo ballaaran oon horumar ka jirin oon dhakhtar ka jirin oo wada ka jirin oon caafimaad oo biyo ka jirin baa jira markaa deegaankaasi si uu deegaanada kale u soo gaaro waxa dhici jirtay ama waxa la maqli jiray kaliilada dib u dhacay waa deegaanada dib u dhacay xildhibaan qorshaha ku darso inaad degmada Madarna ka hadasho markastood harewo ka hadlayso inaad degmadii Madarna ka hadasho aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan salaamayaa maayirka magaalada iyo kabayidka marka xiga waxaan salaamayaa marti sharafka oo timiday xildhibaanada sharafta leh magaaladu waa magaaladiinii ku soo dhawaada baan ilaahay turwajaale Kamal Asiya Hassan welcome magaaladu waa magaaladiinii Kamalo yidii bilood ka hor qofkii halkan aad kula direed aniga yahay mar labaad iyo mar saddexaad waan ka raali gelinayaa waxa la yiri faraska usha inaad ku dhufato dheereeyo waxa laawn golaha guddiga baarlamaanka oo baahidaada ku haysa hatta saynakaagu baa laha waxaan u malaynayaa inaan wax eeba sameyn laakiin xaraf baa ku daro waan diray waa ka raali gelinayaa marka horeysa marka labaad wallahi baaqi aan halka ka furnay waa noo dhaadhicisay dhakhtarkii waa naloo keenay iskuulkii waa naloo dhisayaa caafimaadkii biyihii alxamdulilah rabbil caalamiin kollay bilaad baan nahayo baahi waan kabalaynaa oo waxa leenahay biyaha xataa naloo keenayba waxa jira dad danyara oo tumbadii laamiga la soo raaciyey ana gaaray hooyooyin runtii aan intaa layna waxa jira soo jiidan karay xaafaduhu waa isku dardarsadeen oo la soo jiitay laakiin waxa jira hooyooyin taal gaaban oo tumbooyinka in loo biiriyo oo noogu soo noqdaan rabnaa kollay hadalkii suldaanka liidoodi baayadii oo dhanba wada qaatay oo waan xoojinayaa waqtigan in iska lumina maaha biyaha uu Kamaal ku yarnaqo dhakhtarka waxa doonaynaa kollay maxaan ku raayay anaga magaaladeedu way ciid weyn tahay wala sidii loo buuxinayay maxaan ku raayay imka fiicantoon kabayowleeyo guud ku socono beebariga hore waxa la in kaba wajaaladeedo waaweyn oo hooyada uur kaliba qaadi karin hooyada ma islata la ku faysaba xitaa alxamdulilah rabbil caalamiin hadana wadooyinka baayidoodu way nahaysaa waxaan u baahanahay dhakhtar wada dhakhtarka loo tagta oo xaafadaha ka soo baxda waayo laamida hadii la keeno hooyada qabadeeda afraad ma qabadeeda lixaad ka foolanaysa la soo qaado laamida sida loo gaarsiinayo ambalaas kuwa dhexdiisa la gelaya ciide marka wadooyin laamayo dhakhtarka loo gaara waa inaad noogu soo darto dee waxaan leenahay in maxaan ku dhahay baarlamaanka la dhextago alaabtaad noo keentay qalabkaad noo keentay adisaba soo galay waad ku mahadsantahay waa kuugu mahadnaqaynaa adiga iyo xildhibaankaagaba guuleysta baan leeyahay halkaa iyo meel kasii fiican gaari mooyo insha allah waxaan noqonaynaa kuwa ubadkooda iyo dadkooda ku duuban ee si fiican lii doorta kuma khasaaraysiin doorashada araabi insha allah haddii laabaad yidhaahdo waa guuleysanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku salaamayaa maanta bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waxaa la yidhahdaa muxiidiin cali xasan waxaan bismi illaahi raxmaan raxiim
horta ilaahay baa mahad leh madasha suugeena aad ugu badan leh ee leh suldaanada xildhibaanada iyo maayarkii bulshada dhammaanba leh waxaan ku bilaabayaa inay kulley waxay noo yimid xildhibaano baahideedana ka jawaabay baahiyo horena ka soo jawaabay waxaa jirta magaalada baahiyo hor jira kulley fara badan suldaanada way ka soo hadleen guddoomiyaha qabale way ka soo hadleen misaal waxaa ku daraya haddii la yidhaahdo waxaa jirta camal la'aan aad u baahsan oo xagga dhalinyarta marka ay dugsiyada ay ka baxaan ardaydu ay soo dhameeyaan waxaa jirta camal la'aan aad u baahsan in dugsiga loogu daro farsamada gacanta oo elektarooniga iyo waxba ay ku bartaan ta kale waxaa jirta dugsiga dadka baahiyaha gaarkaa qaba magaaladu male taa laftarkeega waxa weeyaan in xildhibaanada ay loo qaadaan fariintaasi sida dugsiyada dadka dhagoolaha iyo baahiyada gaarkaa qaba ta kale waxaan aad u adkaynayaa maadaama camal la'aan aad u baahsan jirto oo ay dhalinyartu badan ay bilaacan tahay magaaladuna ay kawsar tahay kolba ka sii weynaanayso sidii baahiyaha uga bixi lahaayeen in dugsiyada loo sameeyo gacmaha farsamada gacanta kuwa iyo aad iyo aad waxaa daba halkan aad iyo aad uga salaamaya xildhibaanada baahidooda bulshada aad iyo aad uga jawaabaya waa ku mahadsantii boqolkiiba boqol lagu soo noqdo waxaan leenahay had iyo jeer soo dhawaada waan salaamayaa xildhibaanada heer deegaan iyo heer federaal iyo maayarka magaalada Togo Jaale mudane Maxamed Waaberi iyo suldaamada caaqilada odayaasha hooyooyinka dhammaan bulshada reer Togo Jaale aad baan u salaamayaa anigu magacaygu waxa weeyaan Maxamed Daahir kulley su'aalaha intii badnayd hortayda la weydiiyey kulley ana haray in looma hadlo laakiin maxaa haray baa loo hadlaa marka suldaanka ayaa su'aashii aan rabay kulley weydiiyey marka taad madarka oo kale degmadan gobolkan Araabi mataqaanaa shaqadii berihii ugu dambeeyay dhaxaysay idinku maadaama tiin xildhibaanadii deegaanka iyo heer federaalda bariishkii isku xiriirayeen bulshada iyo dawladda marka kulley xogtii ugu dambeysay ee maamul xildhibaan degmooyinka iyo gobolkii Araabi iyo degmadii madar ayaan kulley weydiin lahaa inaad update-kii ugu dambeeyayna la siisaan talabaad siduu suldaanku kaga shaqeeyay isku xidhka wadooyinka wax wadada male dawladdu waxay qorshe u qaadatay in ay qanciso bulshada ka jawaabista baahida bulshada in la qanciyo bulshada oo xoogga la saaro in la baahideeda laga jawaabo marka degmada awbaro kale iyo inta isku jiraan canfar iyo madar lama qiyaasi karayo waa maalin socod kama jawaabi karayso bulshadaasi markaa way ku dulman tahay baan aaminsanahay marka in kulli hawshaas update laga siisaan baan rajaynayaa oo wixii ugu dambeeyay noo sheegtaan xalta labada hal su'aal oo kale ku darsanaya jecelahay in loo gudbisaan anagu maamul magaalo nahay magaalada Togo Jaale waa ismaamul magaalooyinka ugu dambeeyay magaalada Togo Jaale gashiga ay u baahnayeen dawladda Kenya ma helin baan qabaanuhu waa magaalo caqamadooda wadooyinkeedu waxay gaarayaan 600 oo kilomitir wadooyinka gudaha markii la cabro 600 oo kilomitir wala caqamadu isku socodka xilliga roobka aad bay u badan tahay marka hal codsiga marka soo gudbinaya in mashruucan road fadhiga ee magaalooyinku ay helaan inay magaalada Togo Jaale hesho ayaan rajaynayaa ayaan ka codsanaa oo aad dawladdu shalhaar fadlan leedahay aad baa u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي الحين موسى waxaan ku salaamayaa xildhibaanada maayarka salaadiinta qof kasta magaciisa iyo nasabka uu ku fadhiya ku salaamayaa anoo raacaya salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam kadib kolley waxaa jirtay hadalka intiisii badnaa waa yidhi أنا حيوجين يوم أبو حجران كماليات كبار الفدرالة واحد شتي ما عندي إنه مشروعي بنيين مجالنا أو مشروعي إنه شغالين صنايع دنيانا كل ما يكون في الرياض بنجيب واحد صنايع إنه شغالين إنه في الصحراء إنه يكون هذا إنه في الصحراء ويعليه مدين كمان 7 سنوات 14 سنة انت الجريمين كل اللي هو الدور البيعي دور الحين حالته سواء من الرياض أو ما يسوق ما هذا بنجيد مجالات الصامين كل هاي جماعة كعتان هذا دورها
magaca uu noo duulay kulay magac xun baa noo duulay looga jaaray magaca uu iska duulay inay sixir markayadu ay u tahay saldhig marka waxaan leenahay xilliga kollay shirkii ku horeeyay waa lagu weydiiyey su-aashaas kollay wixii kasoo jawaabtay waad ku mahadsan tahay laa shukra calaa waajibku saaran unbaad gudatay oo wixii lagu doortay buu ahaa waxaan ku doonayaa inaad hawshaa kalgiyada mar labaad loo qaado oo adigana insha allah nagu soo jawaabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan u salaamayaa kasoo qaybgalayaasha madashan quruxda badan leh xildhibaanada maamulka madaxdeeda inteeda kala duwan suldaanada caaqilada maayarkeena magacaygu waa Cawaax Ismaaciil wuxuu baan ku darsan lahaa uun mar haddaanu dhalinyaranahay waxaanu ognahay baahiyaha gaarka ah ee ka jira xagga dhalinyarada hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto shaqo abuur يعني إن الله سماه دنيرته وهل كأكيد استطاعي مجاله معمول ديجان وحول بارك كد السنين ما كد اسمه معمول وحويان دنير هذا هدي عنان وناجسن أما عنان عن قبل إنه من هندت شرع وحين قبسنا مشرته وحين هاننا مشرته مركز دنير ذي إنه وحكونا هاي وحوم بنرلها إن وحبرشة هنالات هيو والمست أنا قد هذا قن شبينا هاي وأنا كسوق بدنا عقبة كلاسيدي هوسه كوي دحه iyo kuwi sare marka wuxuu man ku darsan lahaa in waxbarashada wajaale aad loo tayeeyo sababtoo ah ardayda niyad jab fara badan baa ku yimiday waxbarashadeeni hoos u dhac fara badan baa ku yimiday ma haysano waxbarasho tayeysan right now so waxaan oran lahaa waxbarashadeena aynu kor u soo qaadno hana loo tayeeyo ardayda waalidiintu ha ku baraarugsanaadaan maamulka ha ku baraarugsanaadaan xildhibaanaduna ha ka warhayaan sababtoo ah sanad kasta waan ognahay hadda sanadkan ugu yar wanaagsanaa reeyo jaalo waxbarashadu yani dardargelinteedu ay aad u badatay kadib dhibco fiican ay ka keeneen laakiin almost dadka ugu badnaa way daateen hadday daateen waa inuu inooga yaalo fikir ah ardadan hadda maxaynu u sameynaa sidee baynu ugu hayn karnaa iskuulkii oo sanad labaad intay ugu celiyaan ay u baasi lahaayeen sanadka xiga marka anu wuxuun baan odhan lahaa in la ogaado dhalinyarada magaalada iyo in la ogaado ardayda magaalada ka soo baxaysa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan soo dhaweynaa xildhibaanada heer deegaan iyo heer dawladeed federaalka Itoobiya aad iyo aad baan togo jaaliyada ku soo dhaweynaynaa marka labaad waxaan mahad u celinayaa maayarka iyo kabineetka togo jaale halkan fadhiya iyo dhammaan dadweynaha reer togo jaale inta ka bacdi kulli wixii badnaa waa laga hadlay hal qodob oo أنو أدو يكتبينه ما دام مقالدني اسمه المقالة عصور هايد اسمه يوغا أي دولة سمايسو قريين اسمها أنت قريها مشروع هاي الفدرال آد بان هالخا وقبا هاي بدن هاي والمقالين ككلمة دام مدوين فرب بدن دي أما قبل سو هاين أما ما المقالة سو هاين أنا هو مشروع عصبيد قريين مالهاين guriyeynta in mashruuc weyn laga siiyo heer federaal ay noogu guntantaan qodobka kaliya ku daraya aad iyo aad mahadsantii kulli baahiyo jira iyo xaalado kulli ku gadaaman magaalada ay bulshadu ka hadashay waana nagu mahad celinaa kulli marka bulshada meel degan la yiraahdo iyo baahiyaheedu inta way ka bilaareen kulli xaqada markaynu ka warano waxaan uga mahad celinaynaa mar labaad oo chance ka faa'iideysanaya xukuumadda madaxweyne Mustafa hogaaminayo ka jawaabisii degdeg ah ee dhinaca dhakhtarka darajada koowaad ee looga jawaabay baahiyaha bulshada iyo dugsigii sare aynu codsanay labadiiba iyo mashruucii biyo-gelinta ahaa ee heer federaal loo qabtayba markaynu xaaladda aad ka hadasheen aan usoo laabano in yar waxaan doonayaa inaan laba arrimood yar taabto inkastoo kamaal la ku wareegsan doono isaga su'aalo badan hor yaalaan laakiin dhinaca leerka ceelasha saad ogtihiin maalin dhaweyd waxaan ku maqnaa aniyo madaxa biyaha adsaaba tagnay waxaan si systemka biyaha leerka loo gelinayo aan xagga dambe ugu reexnay markaanu tagnay waxyaalaha noo soo suuro galay waxay ahaayeen in naloo ogolaaday laakiin markii aanu ka soo noqonnay in la yidhi haddana 3 ceel ayaanu idinka bixinaynaa dowladda dhexe marka saddexda ceel ugu biyaha badan leh in marka hore leerka la geliyo
markaa mar labaad waxaanu warqad adu codsanaynaa deegaanka ka codsanaynaa saddexda kale isaguna inuu geliyo haddii la dhahdo marka waa arrintaas way socotaa wixii kamaal ka qaban karana oo ka codsanaya isaga laftigiisa inuu ka qabto laakiin waa hawl inoo socota arrinta ballaarinta leyrka kolley xafiiska howlaha guud iyo magaalooyinka kolley uu yimid waana tusnay goob halkana oo 500 saacadood ku dhigantoodna haysidba markaad aragto marka wasiir ku-xigeenku waa kay dhiisaan ku arkay wuxuu yidhi xaaladani kolley waa xaalad ka duwan xaaladii hore sanadkan maan qorsheynaynaa buu yidhi 2018 inaan wax ka qabano dhinaca iyagana kolley qabaleeyada loo ballaarinayo qabalee ka mid ah inaanu anaguna ka maamul ahaan anaanu ka farmanaane aanu ballaarino ayaa qorshe aanu ku darsanay halkaa qabaleen insha allah ballaarintaas way gaadhaysaa maamulka Togwajaale magaalada Togwajaale ee ugu horeeya maayirku odayaasha dhaqanka haweenweynaha Togwajaale iyo dhalinyartaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad baan ugu faraxsanahay ajiibitaanka aad soo ajiibteen mar walba inaad xildhibaanada aad la tashataan aad u timaadaan aad dhiirigelisaan waayo baahiyihiina inaan maqalna anaga waxay noo yihiin dhiirigelin bay noo yihiin oo marka aan golayaasha fadhino waxyaabo waxay yihiin xog noo ah oo inaan ka hadalna ay tahay xog helaa tala hela baa la yidhi haddaanan xogtiina aananu haynin baahiyihiina aananu haynin anagu waxaan idhaahnaba garan mayno waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka xildhibaan ahaan mas-uuliyaddiisu ay tahayna waxa ay tahay in codka shacabka la gaarsiiyo meel una fadhiyin maamulka magaalada Togwajaale ama shacabka Togwajaale meel aydaan ka hadlayn oo aydaan joogin marka aan joogo inaan Togwajaale iyo madalkaba la iga maqlo ayaa loo baahan yahay taasina alxamdulillah ilaahay baa na waafajiyay baan leenahay oo goob kasta iyo madal kasta oo ay ku aqoon tahay waxaan kaga hadalnaa baahiyaha ay leeyihiin magaalooyinkeena kala duwan waxaan aad ugu faraxsanahay uga mahad celinayaa xisbiga barwaaqo iyo xukuumadeena uu hogaaminayo madaxweynaheena Mustafa in baahiyihii ugu muhiimsanaa laga jawaabay waxa ugu muhiimsan in biyo la helo in biyo aan helnay ilaahay bay mahad u sugnaatay waxaana maxaan dhahday ilaahay noo soo dhexmariyay furfurnaanshaha siyaasadeed ee uu maxaan dhahday xukuumadeenu ayna siisay ee xisbigeenu uu hogaaminayo run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan ee in la helo ay tahay waxaa ka mid ah nabadgelyada ka mid ah in si xor ah loo noolaadaa ka mid ah in si xor ah oo nabadgelyo ah u noolaatana inaad gurigaaga joogto maaha in xabsiga aad ka badbaadana maaha waxa ay tahay in maskaxdaada xor aad ka tahay waxaad rabto aad sheegan karto waxaad diidaysa aad diidi karto waxaad u baahan tahay inaad sheegan karto runtii waxaynu ogeyn isbedelkii ka hor inaynu sida caddaanta leh aynaan u hadli karin waxa aan rabno iyo dareenkeena aynaan muujin karin waxa ilaahay mahadii ah in maanta dareenkeena si cad aan u muujin karno meel walba oo aan sheegno waxaan sidoo kale u mahad celinayaa shacabweynaha karaamada mudan ee maamulka magaalada Togwajaale in dareenkiinii oo dhab ah aan idin maqlayo aanan gudbin doono marka xildhibaan ahaan meelaha ay khusayso waxaa sidoo kale xusid mudan in dhammaanba baahiyaha laga jawaabay aan uga mahad celinayno ayna tahay xuquuqaheena inaga maqan ee ay ka mid tahay in magaalada Wajaale magaalooyinka kale la tartanto in magaalada Wajaale ay hesho waxyaabihii xaq u lahayd oo ay ka mid yihiin infrastructure-ka ama dhismayaasha kala duwan inay hesho oo ay xaq u tahay inaan codkeega meel kastaba gaarsiino inay wadooyin hesho iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay u baahan tahay sida ay u heshay biyaha inay xaq ugu leedahay cidna ay uga daba fadhiyin meesha ay xusaysaba waan gaarsiinaynaa insha Allah marka aan magac weyn ay yeelanana kulli wax qabadku uu soo kordhayaa sidoo kale wuxuu gaarayaa meelo una gaari jirin marka shacab weynuhu codkiina oo la maqlaa wuxuu dhiirigelinayaa wuxuu culaysinayaa xildhibaanada idin matala ayuu culaysinayaa marka inaynaan ka xishoonin xuquuqaha aan leenahay oo mar walba aan u taagnaano wixii aan helnayna ilaahay ugu mahad celina marka ugu horeysa sidoo kale
xukuumadda iyo xisbiga BB-na aan ugu mahad celino kulley waqtiga oo gaaban iyo goorta oo gaaban aad iyo aad baad mahadsantihiin xildhibaanka ku wareejin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أهلا وسهلا يا شعب كي شرفت الله يرضى عليه صعب كي سودويتو إلى ما أنت ولا لا كتشرنا إلى ما توصلنا كي دنبي هو لقتشرو واسكمل مرجع ثاني واحد موجودنا يساعد درين كينو وليه هو الصعدة هذه أهلا ما سنتين تذكرنا مركز كنيات مقدام وحي الدوام يعني إلى هاي وعوره مايا كل هذا البدن ما يو صلاة الجمعة يا لوجرا وحي باهيا أمير تيجانا سوق سيسا أمير فدرال كل شيء دانو قادنا إن دال كنال كي بانك وضعنا قطب كوجو مهمسنا سودان سوريا أو ثابته ومارانو كهذي جيت كمركوب بها ما يلاح ذا مركل لديره جيت أبدانو مجرين ما يلاح ما لديره أما الله ما يجري يعني هرت قبل كهرباء اللي قلنا واقعي إن بدحوينونا markii ay bare gelintooda aan dhagax dhigaynay oo ballan qaaday miiska saaran horta wixii soo wataa xildhibaanaduna sidoodaba oo iyagu waa sameecada kale shacabkuna waa mikrofoonkii dadku waxay ku hadlaan ma sidaan sameecada gudbinaa anagu marka aad baan ugu faraxsanahay sulbaanka inaan ka maqlo afkiisa degmadii madarka ee bariga degmada oo bare xukumaysay marka waxa la yahay sulbaan gobolka Harwo iyadoona madar la socon gobolba ma noqonayo marka iba furka gobolka Harwo oo wata degmadii madarka iyo degmooyinka kale kulay xildhibaanku markuu airportka ka hadlay wuxuu yiri gobolkii oo degmooyinkiisii cusba iyo magaalooyinkiisii cusba wata halkaas ay ku dhex jireen marka laakiin in shacabkii laga maqlaay hadday salaatu isqabatay baan leenahay marka waxa weeye maxaan gobol u rabnaa maxaan degmo u rabnaa qaab dhismeedka dhaqaalaha wata ee miisaaniyadii shacabka soo gaaraysay iyo shacabka adeegii loo dhaweeyo markaas oo horumarimanaya imika tusaalaan degmada Harwo sidan un bay iska ahayd intayna degmo noqon iminkay horumar iyo waxay ku gaareen marka madarkuna insha Allah waxaan leenahay gobolka Harwo way soo raacaysaa innagana آمين مركا ولا ضالين مركا ندا آمين تيجي على يدك مغلا مركا عدكينا يدونستينا مديننا وبوليسنا إلى يسوع أسبتال الذي بيجلينه يو أسبسكول الذي إنه هو رومي أيكون هو رومي يا عدكينا ونيونا جاهن مركا آمين سكونا سارين إن شاء الله ويسوع تقدر يساعد دعاء هي آمين تانسراعنا أبدا ما سنتي بسم الله وما سنتي إن شاء الله ونسوقه بدونا waxaan ku faraxsanahay inaad dareenkiina si hor aad abirtaan su'aalana weydiisaan saayela sayela tiraadaan qofku ku kalsoon yahay bulshada waxa ay qabo taas anagu marka farxad baynu tahay waan soo dhaweynaa wana bogaadinaa xitaa dhaliilaha iyo cabashada laftigeeda waan bogaadinaa Soomaaliya waxay ku maxmaadaan nin xilqaad qaad bay yiraahdeen oo dadka ka cabsoonay ka gabanayna minni taana waxaan ku bilaabayaa walaashay Anisa Ahmed gudoomiyaha qabaleygeena koobaad ka dhawaajisay doorkii hore fikirka sifaan oo abartay maadaama aan aaminsanayna hor u tahay inaad aragtaan baan u maleynaa iyadoo su'aasha si ay weydiinaysan bogayga Facebook-ga soo dhigayba haddaan u arki lahaa inay khaldaneed maba soo dhigay marka waad ku saxsaneed markastana wixii ammaana waa ammaan wixii ma garatay su'aala in lagu adkeeyana waan kugu bogaadinaynaa shacabkay hogaaminaysay gudoomiye tahan baa ku guuray guuhan baa naga noo soo gudbisay anagana kuwii naga sareeyo baan usii gudbinay marka intaan baa la wada marka soo dhaweynaynaa maantana bogaadinta soo dhaweynaa annagu ku bogaadinaya Allah ku sharfo wixii baahayd maanta noo sheegay inoo qorayiin inta hordhac baan ka dhiganaya waa run nimco kasta dee kolley ulaaskeeda leedahay biyogelinta hadday noqoto dhakhtarka noo soo kordhay leylku waa aad muhiim yahay marka leylgelinta helasha hadday tahay iyo wixii kale la baaladinaya hadday laamiyay tahay meeyarku halkuu ka wada noo sheegay inaan isaga toos ku xidhnaano oon xagga aan ka sii wadnay noqonaysaa mar dambena meeyar uma bahda adisaaba timaadid kamarada adisaaba joogay xagga hawlaha kawood baa waran xaggan iyo xaggaasaas anaa adisaaba ku fadhiye labadeena halkaa ka uleyn doona hadduu la yidhahdo allaha nagu asturo taas waa taas shaqaaduurka waa arrin meel kasta ka taagan waanu ku dadaalaynaa
hawsha bankiga walaalkii ka dhawaajiyey inaad baarlamaanka ka daawateen baan u malaynayaa si adag wixii kale inta la qoro habsida geeyay ka soko maadaama inta sanna joogno hadda 3 sanno soo dhaaftay waxaan kulba soo geelno marka lagu dhawaaqi waaye anoo baarlamaanka live soo galna daawateen baan u malaynayaa dhowr deeqaan ka hadlayay bankiga magaalada Togo Chale haddii tahay lacagta la bahayo haddii tahay lacag diristii haddii tahay lacagta magaalada lagu soo galayo marka hawshaas in badan baan ka hadlay iminkana waan ka hadli doonaa waa run shay aad muhiim ah oo hadduu baanku dhaqaaqo waxba baan dhaqaaqaya iminkana kama hadhayno waan u tagi doonaa masuuliyiinta khusaysa inta haddana maqasho oo ka baaqayna diwaasi intii loo gudaaran lahaa way dhaaftay hana laga fasaxo bankiga marmarsiye inta ilaa maanta maraysaa ku filan inta ka baadi oo maleen marmarsiye baahan tahay iminkana saad odka muujiseen si ka daran ma adkeen doonaa doo la yiraahdo gabadha walaasha dacdaya runtii dareentay muhiimadda waxbarashada aad u bogaadinaya talayna siisay waana siisay mid xildhibaanada ku saabsan ma dhamaanteed ku saabsan tahay annaguna ka xildhibaan ahaan waan qaadanay abayaasha hooyaasha qaataan maamulka magaalada ha qaataan iyaduna iyo asaabteedna way qaadan doonaa oo dareensanahay marka gurmad adag u baahan yahay wadanku wuxuu guuray waxbarasho teele tiradii badneed ee la isku faanayay waa laga guuray maadaama ay tayo noqotay tayada gurmad wada jiray u baahan tahay dhammaanteen aanu gurmadna oran lahaa marka baahiyo dhow inoo qoran yihiin maadaama maanta inta ku soo baan taabanaya dhismaha hadday noqoto guryeynta magaalada waa meel ay shacabku badan isku yimaadaan guriyuuna markaa waa laga maarmaan taana waan qaadanay insha Allah waan ku dabageli doonaa Allah nagu asturo qodob hal ugu dambaysinay waxa weey in suldaankeena iyo dhalinyaro kalaba ay soo hadal qaadeen ku saabsan ku dhawaaqista gobolka Harawo marka la yiraahdo ama marka aan gudoorsho Arabi waa bulshada balaaran weey wax ku socda ma hal qabiil wax ku socda ma waa shacab balaaran oo la wada leeyahay way tahay la fahmo weey annagana dadka laga bilaabo Togo Chale ilaa dambar shisheey ma matala dareenkaas aan ugu jira shacabku anagu inoo sameeyeen hadda daba waan soo marnay oo bare waan soo marnay degmadii Harawo waan soo marnay Togo Chale waan nimid marna meel kama aan baaqan gobolka Harawo markii goboladii kale lagu dhawaaqay iyo degmooyinkii kale lagu dhawaaqay miis ku saarnaa say xukuumadda iyada ugu sareysa anaga nooga warantay ballanqaadkii lagama noqon waanu ku dhawaaqi doonaa la sugayo baahiyaan annaga intaan la sugayo baan codka kor u qaadaynaa faataxadana la garab wadana laakiin waxa markaas ku alaalinay gobolku waa inuu wato degmooyinkiisa cusub iyo magaalooyinkiisa cusub degmooyinka cusub markaana waxa ugu horeysa ee ugu mudan waa madarka anu madarka hadalkiisa hadda maanan bilaabin markastoo shacabka la kulmo Togo Chale waxa raajilay shacabka Togo Chale iyo madarka inaad khadka ka daawatay baa suurtagal ah marka madarka aad buu loogu socdaa aad buu loogu weeyay badan ay taa faham maantadan xagga saaka hadda ma shinay galabta shacabka abay fulaba noo balansan oo abay fulaba shacabkeeda la kulmi doona taas waxa muujinaysa madarku lagu weeyay marka insha Allah in gobolka Harawo oo wada degmooyinkiisa cusub ay madarku ugu horeysa waxay u baahan tahay inaan dhammaanteen ugu dadaalo maadaama la ballan qaaday aaway hadaan badin weyno dibkeeda leedahay marka aaway inaan wada badino soo diyaar looma hala soo dadajinaan badino soo diyaar looma hadaba insha Allah soo dadajiyo wax kasto shacabka khayr u ah anagoo soo dhaweeyay dhammaan deegaanka Soomaalida wixii gobol soo kordhay wixii degmo soo kordhay wixii magaalo soo kordhay waa deegaanka soo kordhay wax dhammaantiin soo kordhay way waa wadanka Itoobiya soo kordhay wax caalamka soo kordhay way marka naqabisoodka la balaariyana horumarka deegaanka iyo ka wadankaba faa'iido weyn buu ku leeyahay insha Allah taa baan ka sii wadi doonaa say marka saba aaday noo ahayd maadaama aan aaminsanay waafajintan Ilaahay leeyahay maantana maalin jimco barakeysan ay tahay markaas intaan duceeyno faatixina kala tagna Soomaa marka imikana sheekha inoo duceyn waanu faatixina sasan ku xirina وصلى على رسول الله على نبينا محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم بارك على سيدنا محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد الهي هينا بركه الهي حولنا دمنتها انه فضيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيزي الله